بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير walaalayaal waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo haddii allaha awoodda lenoo saamaxo aayad haddii aada akhrido allah subxaanahu wa tacaala uu kugu anfacayo waa aayad aada u weyn waa aayad aada u qiimo badan waa aayad haddii uu ku asiibo xanuunkaasna aadan garanaynin sababkiisa ood akhrida aayaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaalaa xanuunkii waa kaa dulqaadayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka walaalayaal inta aanan soo gudbinin waxaan kaa codsanayaa si sharaf leh kaaga codsanayaa walaalkayga muslimka ah walaashayda muslimadda ahay inaad janalka sabscribe ku samayso laygtana aada riixdo juhdiga iyo dadaalka aan bixinaynana inaad ma aragtaaye intaad nagu taageertaan ayaan idinka rajaynaynaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. haddaan u gudbo mowduuca haddii uu ku asiibay xanuun aadana garanaynin meesha lagaa haayo iyo waxa ku haayo waa iska xanuunsan tahay wax ku haayo ma garanaysid qowlkan ilaahay baad akhrinaysaa ilaahay idamkiisa waad badbaadaysaa waadna caafimaadaysaa biidni ilbaari adigana qalbiga sidaa geli qur-aanka kariimka kalaamullah weeye kalaamuraxmaan weeye kalaamulmanaan weeye kalaamullahi casa wajalla weye markaad akhrinayso qalbiga geli in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu anfici doono. marka walaalayaal waxaad akhrinaysaa aayaddan hadda aan soo wado insha allahu tacaalaa waxaad akhrinaysaa 100 jeer baad akhrinaysaa maalin kasta muddo adiga waad wadaysaa isbuuc dhan ilaa ugu badnaan waxaa laga yaabaa inay kula gaadho 40 beri. marka walaal iska dulqaado ilaahayna ha ka quusanin qur-aanka kariimka ana akhri iskuna toof ilaahay idamkiisa waad caafimaadaysaa biidni ilbaari. haddana aayaddii waa tanaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim bismi illaahi arraxmaani arraxiim وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم. walaal aayadaasaad akhrinaysaa 100 jeer baad akhrinaysaa maalin kasta muddo 7 beri ah ugu badnaan 40 beri ah ayaad wadaysaa aayaddaas maalin kasta 100 baad ka akhrinaysaa waad ducaysanaysaa waxaad ku ducaysanaysaa duco yaroo gaaban allaahumma kshif idurra cannii waxaad oranaysaa allaahumma kshif ilaahayow iga fayd aldurra dhibaatada iyo xanuunka cannii xaggayga. ducadaasaad ku ducaysanaysaa macnaheeda inaad fahanto waa muhiim. allaahumma allahayow ikshif iga fayd addurra iga fayd dhibaatada iyo xanuunka iyo jirada aan garan la-ahay waxay tahay cannii xaggayga ilaahu iga dulqaad. saasaad ku ducaysanaysaa. marka waxaad ku dul akhrinaysaa biyo weeye biyahaasna insha allah waadna cabaysaa wejiga iyo waxaasna waad marmarsanaysaa biidni illaahi iyo korkaaga oo dhanba biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa la yidhi qof isdabiibo ama qur-aan la isku akhriyo waxaa ugu wanaaga badan baa layidhi qofka xanuunka hayo qofka inuu isku akhriyo taasaa ugu wanaagsan. dad kale way kugu akhrin karaan balse waxaa kasii wanaagsan inaad adiga isku tufto. qur-aanka waa laguu sheegay aayadda waa laguu sheegaye aayaddaa walaal akhri insha allahu tacaalaa. aayaddaas akhri 100 jeer maalin kasta ku tuf biyo kadibna biyaha isticmaal muddo 7 beri ah sidaa wad ugu badnaan ilaa 40 beri ah sidaa wad. intaasaan doonayay maanta inaan idinla wadaagsado mar labaad iyo mar saddexaad. walaalayaal waad mahadsantihiin. janalka subscribe ku sameeya like riixa siina sheer gareeya ilaahay waxaan weydiisanaynaa
qof kasta oo janalka subscribe saaro oo like ta riixo muraadkiisa khayrka inuu midigta ka saaro biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.